taariikhdaas leenahay waxaan aaminsanahay in galmudug midaysan isku duuban loo wada dhan yahay ama dhuusamareeb joog ama caabud waaq joog ama cadaado joog ama gaalkacyo joog ama ceeldheer joog ama kuwa naga maqan weli oo ceelbuur ugu horeysa joog macnaheedu waxa ay tahay haddii aad tahay reer galmudug inaad ka fikirtaa mustaqbalka iyo horumarka waxaa naga hor taagan keliya inaan aqbalno inaan madowno mararka qaarkood waa la kala fikir duwanaan karaa laakiin laguma kala fikir duwanaan karo jacaylka dalka iyo dadka soomaaliyeed loo qabo gaar ahaan dadka reer galmudug kuma kala fikir duwanaan karaan inay u midoowaan danta guud ee reer galmudug soo intaas iskuma raacsanin sidaa la socotaan dowladda federaalka labadii sano oo madaxweynaha iyo anigu aan joognay waxaa ku socday dib u habeyn hay-adaheeda dhaqaalaha iyo hay-adaheeda amniga iyo hay-adaheeda siyaasadda iyo hay-adaheeda